Munez channelkaaga maxaa ku dhacay xayeysiinta maxaa looga goostay oo looga joojiyay channelka ma يعني ما iska day rabtaa oo ma dhaafi rabtaa youtube oo dhan ma iska day rabtaa su'aalaha la soo weydiiyaa midaas ka mid ah channelka loo cusub ma sameysan rabtaa taas ayadan waa la soo weydiiyay sababta keentay in channelkayga hadda markii uu kor u kacay oo viewskiisana oo fiicnaaday oo subscribe fiican oo helay cilada maxaa keenay intee uga imaaday dhankee uga imaaday intaasoo su'aalan waa la soo weydiiyay horta waxaa aad ugu faraxsanahay inaan leeyahay dad aniga i jecel oo maanta ka mid ah familkayga oo kale ka mid ah xanuunkooda oo yahay aad iyo aad horta ugu mahadsantihiin youtube-ka inaan ka baxayo in kale insha allah video ku daawada waxaa laakiis aad iyo aad ii xanuunjiyay comment qaar oo la soo qoray insha allah asagana waa soo sheegi doonaa kulli waxaan leeyahay qof walba aan ilaa dartiisa ku cafiyay oo ani yani dib ii geysanayo qofka aan dib iga tabanayo waxaa jeclahay inuu iska ka cafiyo insha allah cilada youtube-ka ku imaaday meeshay ka imaaday iyo sababta keentay marka videogan ku daawada iyo su'aal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga kusoo dhawaada channelkeena Munez Cooking meel baa adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajeynaa aniga waa idin caafimaad qabaa maasha allah fadlan haddii ay tahay marka horeysa ay channelka soo booqanayso waxaa kaa codsanaya inaad subscribe noo saarto gambaleelkana furto si muuqaal walbo aan soo geliyo oo kuugu soo dhaco يعني marka hadda idin leeyahay subscribe saar dad qaar waxa laga yaabaa inay la yaabaan ciwaanka iyo furfurtaanka youtube-ka insha allah videogan insha allah ku daawan doontiin mar walba waxa fiican inaad faraxsanaatid wax walba horta oo kugu dhaco oo يعني adduunyadan qofka ma dhimanin hanti ma ka qasaarin يعني guri iyo adduunyo wax aad beeshay ma laho youtube xun leh waaye waxaan shalayta gaala sameeyay berit waxaa laga yaabaa in hawada dhanba oo yani ka baxabo saasay tahana waxay soo weydiiseen su'aalo aad iyo aad u badan oo aad leedihiin Munez xayeysiintaada maxaa ku dhacay channelkaaga maxaa ku dhacay xayeysiin ma laho waa sax channelkayga xayeysiin ma laho dhammaan videoyada hore ilaa iyo videoyada hadda ugu dambeeyo kan hadda aad daawan doontiin insha allah laga bilaabo yani ugu dambeeyo ilaa ay kubi ka horeeyay hadda ku dhuftina fiirsin waxay siina ma saarno marka ciladaasna kullee ma aqaano waxay tahay marka kullee waxa idin dhahay malaho dad badanaan waxay soo dhaheen youtube-ka inaa ka baxayo in kaleeto ciladan horta waxaa ku arkay muddo 5 maalin waa hadda inta laga joogo video ugu dambeysay qisada jaceylka ah soo gelinayay sax asaga waaye kii ka horeeyay ku arkay maalmaha kamid ah oo fiirinayo oo isdhahay youtube studio fiiran waxa arkay calaamadii doolarka oo cagaarka laga rabay inay ahaato oo madow wada noqotay maalinka ku xigtay waxa soo gelinayay video markaas dhaxaysiinta kufur uu iga diiday waa iska dilid maalinkaas wax video ma soo gelin waa iska dhaafay dad badan aa weydii ma sha Allah ilaahay ajri xasanaata siiyo gabdho badan oo muxuu sidooda kale in ayaga ay leeyihiin oo kale channelkooda oo ka ciladoobay oo muxuu ayagana ila raadiyay ciladii sida lagu xali lahaa asxaab badan weydiiyeen siyaabaha ay ku imaan karto in xayeysiinta videoga loo diido amaba laga wada dejiyo xitaa wixii hadda videoyada ugu dambeeyay ma ahan videoyadeedii ugu horeeyay xitaa xayeysiinta waa laga wada xiray oo xayeysiin ma saarna dhamaantooda waa la isku dayay laakiinse wax natiijo ah kulay kama arkin ahayd 2 maalin aa isku daysaa jeclahay iyo habeen iyo maalin miya intaas oo maleena dadka weydiiyay markii dambe waxaa go'aansaday inaa iskaba dhaafo oo aan dad weydiinin aan isku mashquulinin oo niyad aan gashanin hadii marka waxaa arkay meel oo la dhahayo ilaa 4 September hadii la gaaro oo markaas wax isbedel ah arko waa arki doona hadaan arkin insha Allah sidiisa iskaga deena marka yani wax kale inta ku sameeyo malaho dad oo saas u sii yaqaano oo yani saas ugu sii dheerna aniga xiriir lama lihi mana aqaano su'aalaha idinka ay soo weydiisan darteeda muxuu ahaayay keentayna videoga aan soo sameeyo tan kale waxay dhahdeen youtube-ka ma ka baxaysaa aniga youtube-ka ma ka baxay hadii idinka muxuu ahaayay ay rajo dhigtiin oo muxuu ahaayay
videoyadeeda aa si fiican u daawanaynin, commentiyada aa kasoo bixinaynin, liketa aa saaraynin, markaas waa laga yaabaa inaa ka rajo dhigo ana youtube-ka iska dhaafo. laakiinse intaa idinka garabkeyga aad taagan tihiin oo views fiicanna aa siinaysiin channelka, oo like badanna aa saaraysiin, commentiyadiina oo igu dhiirigelinaysiin aad iga reebanin, ma ka helayo maxaa youtube-ka wax allaala markaas wixii ahaaye iyo wixii walaala dhibaato ay la soo wadaagaan. waxaa jeclaa idinkana inaa idinla wadaago, aa idinla share gareeyo, si markaas idinkana aa u caawisaan. waxaa isweydiinaysiin yani maxaa kugu kalif kara inaad sii wadid youtube-ka, maadaama youtube-ka dadka badankooda ay usoo wada galaan inay dhaqaalo ka sameeyaan. waa sax, dhaqaalo waa laga sameeyaa, soomaalida oo dhan ma ahan, weliba youtuberada oo dhan waa caalamka dhaqaale usoo galeen inay ka sameeyaan. laakiinse aniga way noqon weysay. marka maadaama ay noqon weysay, dadna waxay soo dheen ma laga yaabaa inaad channel kale inta aad samaystid aa u guurtid. channel kale ma samaysana, haddii kan oo ii fiicnaada aan arko wuu fiicnaada, haddoosan fiicnaaninna oo idinka ay garab taagan tihiin ay dhiirigelinaysiin, ma joojinayo, waa iska wadaa. idinka dartiina aana ku joogaa moogi, aniga dhaqaale iyo waxaan ka sameynaya darteed kuma jooga hadda youtube-ka. videoga hadda idinsoo duubaya iyo wixii ka horeeyay kulley wax dhaqaale iyo waxay sameynayaan mala, waa la wada joojiyay, maadaama xayeysiin ay saarnayn channelka. wax lacaga ma sameynayo, wax micnana ma sameynayo, keliya idinka inaa ogaatiin waxyaabaha markaas idinku baraarujinayo, waxyaabaha dhibaatooyinka walaalaha usoo duceynaysiin, intaasaa faa'iidaye iyo ducooyinka idinka ay soo duceynaysiin. channelka yani channel laga sabri kara ma ahan, waa sax. channelka haddoo kor u qaad yani hor u socod oo sameeyey oo viewskiisu fiican yahay, maasha allah, alxamdulilah waaye. intaan awal lama haysanin, subscribe-kiisana 12,000 iyo jajab waaye. ha ahaata laakiinse haddaan wax laga qaban karin, wax la sameynayo malahmoo. marka insha allah ana waxaa jeclahay inaana joojinin oo aan sii wada idinka intaa garabkeyga taagan tihiin, aa waqtiga gelinaysiin. anigana waxaa jeclaa marwalba inaa waqtiga idin geliyo. comment laakiinse waxaan arkay video oo hadda ka hor, yani qofkaas wuxuu commentkii ugu soo qoraa waxay ahayd videogaas cid baaraysa iyo cid ogaanaysa malaha commentiyadiisa, maadaama ay badan yihiin oo 112,000 aa fiirsata videogaas. comment waxaa leegu soo qoray maadaama xayeysiinta lagaa joojiyay, weli youtube maxaa usoo dhex taaganta oo kaleento. taasna horta aad iyo aada uga xumahay, qof oo soomaali in horta aan waxaas iisoo qoro aada uga xumahay. horta haddii aa shacab tahay كل واحد كهلي سد ملح حاسنimada يعني heerkaas xiqdiga yani iga taaganta xageega yani idhigtay. haddii ay youtuber tahayna laga yaabo cilada aan igu maada berita aad inay kugu imaan karto, waxaan waqtigu isbadbedelaa, ma fahanteen. marka insha Allah taala biidnillahi alkarim waa jeclaa xitaa inaa baawiska qaato oo maalmahan dhan waxa aan soo gelinin iska dhaafo ilaa iyo waqti mucayane. haddana waxaa isdhahay asxaabtaada cidleena isdhahay, saas darteeda videoyada hadda saddexdan video ugu dambeeyay saas darteeda usoo gelinoyaa. ma ogiye يعني iska ogtiin waa dareemi kartiin aan maleynaa, haddana dhib ma laha insha Allah. waxaan rajeynaynaa in ciladii ay ka baxday ay ka bixi doonto. haddii yani markaas ay u qoran tahay waa channelka inuu muxuu horumar oo sii sameeyo, laakiin subscribe-ka haddaa cusubta subscribe-ka iska saar. channel kalena ma samaysanaaye, mana raba inaa waqti geliyo. channel marka aad samaysanaysid waqtiga iyo juhdiga u baahan yahay aad iyo aad ay u badan tahay. marka taas intaa sameyn lahaa waxaa ii roon inuu kan iska furnaado. dad walaale xitaa oo muxuu ahaay business soomaalida qaar hadda ayagoona lacag ka sameynayna oo lacag yani way ka sameynayaan aan rabin lacagtaas oo interest aan ka lahayn, yani dan aan ka lahayn, waxay kusoo bandhigtaan ganacsiyo kusoo bandhigtaan. taasna uu fiican yahay. laga yaabo mustaqbalka inaa ganacsato noqdo ya laga yaabo mustaqbalka inaa ganacsato noqdo aa kusoo bandhigo, ma fahanteen. intaasna marka insha Allah waa kaftan waaye. waxaa idin leeyahay meel walba adduunka ka joogtiin, farxad iigu waara iigu jooga. marka waa kaasa videogan maanta intaasa ugu talagalay ahayd. dad badan oo muxuu ahaaye dhahaay commentiyada aan arkay channelka maxaa ku dhaca xayeysiinta waa laga goostay, iyo walaalo oo markii ay kulli soo arkeen fariimahaas ayagana luuqa isoo galay oo caadi ila soo hadlay oo isoo weydiiyey. aniga dhankeyga ma ahan xayeysiinta, aniga ma ka xirin, youtube-ka dhinaciisa waaye. kulli qof oo yaqaana haddii aa ogtihiin waa kaasa, inkastoo ani hadda go-aanka gaaray inaana yani waqti aa sii gelinin. dad qaar waxay dhaheen essence kale intaa ku xiranaysaa oo qof kale uu leeyahay. marka waxaa fiican
waxaan aalad waay aaladda haddii aa isku sii waashidaa dhahdid yaa meelka keen ama wax ka keen haddaa dhahdid adaa ku baxaayo mashquul badan waqtigaaga badan oona kaa qaadanaa ani youtube intaas oo ku jira laakiinse weli horta qofkii waxaa laga yaabaa oo dhaqaalo ka sameeyey oo dhaqaalihii kasoo baxsaday oo arkay dhadhamiyey in markaas oo waqti oo geliyey oo janalka uu kusoo celin lahaa laakiinse ana intaas maba sameynin maho wax dhaqaalaana weligay kama qaadanin marka insha allah haddoo toos alxamdulilah waaye haddoo toos waayena alshukrillah insha allah dhammaantiin waxaa idin wada leeyahay meelba adduunka joogtiin farxad iyo caafimaad iyo guwaara janalkana ma ka baxaay saana u sii shaqeynaa insha allah intaa idinka garabkeyga taagan tihiin janalka ma deyn doona insha allah janalka waa janalkiina insha allah marka videoga mid lamid intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu